Asalaamu calaykum halkani waa Grand Online Academy magacaygu waa Dr. Maxamuud Maxamed waxaan ahay doctorka bixiya maadada barashada daawooyinka ama pharmacology ee Grand Online Academy maanta waxaan ka hadli doonaa cashar ka mid ah bilowga hore ama aasaaska barashada daawooyinka ama pharmacology oo markaa ah sida uu jidhku u process gareeyo dawada marka waxa weeyaan waa qashin saarka dawada ama waxa loo yaqaano drug elimination jidhku siduu iskaga saaraa dawada intaan casharkeena bilaabin waxay idin wargelinayaan inaanu qaadanayno fasalo cusub oo ah barashada daawooyinka qaab online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga nambarada hoose ayaad la soo xiriiri doontaan insha Allah drug elimination dawada meelo kala duwan ayuu jidhku uu ka qashin saaraa ama uu ka saaraa dawadu marka ay shaqadii loo baahnaa ay qabsato marka waa inaanay jidhka sii joogin weeyaan marka waxa la sameeyaa ama kelida laga saaraa kaadida la raaciyaa ama waxa weeye beerka ayaa laga saaraa kadibna waxa la soo raaciyaa pileka saxarada ayaa marka la raaciyaa dawooyinka qaarkoodna waxa weeyaan iyagoo hawo ah pulmonary excretion iyagoo hawo ah bay marka sanka ka bixi karaan marka saddexda hab ayaa ugu caansan hababka uu jidhku iskaga saaro dawada laakiin the most common uguna faraha badan waxa weeyaan waa in jidhku uu dawada ka saaro kelida drug elimination from the kidney marka dawada marka hore si kelida looga saaro dawadani waa in ahaataa polar NF mid biyaha ku milmi karta waa in noqoto ilaa kaadidii baa la raacinayaa dawo aan biyaha ku milmi kareynin oo non polar ah lagama saari karo kelida that's very important haddii dawadu non polar tahay waxaa laga saarayaa markaa saxarada ayaa la raacinaya haddaba elimination of drug marka dawada laga saarayo kelida waxay martaa afartan process ayaabay martaa dawadu number 1 waxa weeyaan ama dawada waxa lagu sameeyaa glomerular filtration macnaheedu dawo kasta afartan ay maraysaa ma aha laakiin waxa weeyaan dawadii si loo qashin saaro waxa la sameyn karaa glomerular filtration glomerulus waxa weeyaan waa shaandadii sifeynaysay waxa weeyaan dhiigga kelida imanaya marka waxay sameysaa dawooyinka non boundka ee aan ku dhagsanayn proteinka ee freega ah ayaa waxay sameynayaan shaandadii bay soo raacayaan kadibna waxa weeyaan tuumbadii kelida ayaa bay raacayaan sidaas marka kaadida ku raacayaan that's known as glomerular filtration dawooyinka qaarkood baa waxa dhaca already glomeruluski way dhaafaan sababtuna waxa weeyaan tusaalahaan waxay ku dhagsayin ba albumin ama protein bay haystaan marka protein iyagoo haysta glomeruluska lagama sifayn karayo because waxaad ogtihiin glomeruluska ama capillarieska shaandada kelida poriskoogu aad bay u yaryihiin wax yar un bay sifayn karaan albumin kama baxdo oo ma dhaafto kadibna maxaa la sameynayaa dhiiggii waxa weeyaan efferent arteriolka marayay waxa weeye glomeruluska dhaafi ayay sii raacaysaa dawadii kadibna mar dambe waxa la sameynayaa active tubular secretion si active process energy u baahan ayaa loogu soo deynayaa tubeska kelida oo tubekii dib loo soo raacinaya marka hore lama filter gareyn karayo laakiin that's known as active tubular secretion marmarka qaar ba hadaba waxa dhacda already dawadii in la sameeyo distal tubular reabsorption that's very qodobkaas aad buu muhiim yahay dawadii waxa dhacda markay tubeski kelida ay waxaad ogtiin glomeruluska markay soo sifeeyaan waxa ku waa proximal tube kadana waxa ku xiga distal tube marka la joogo ayaa dawadii ay ku farabadanaysaa tuumbadii kelida dhexdeeda kadibna maxaa la sameeyaa waxa dhici karta marka qaar in dawadii dib loo nuugo marka in dawada dib loo nuugo ay jidhka dib u gashaana ma fiicna marka sidee looga hortagi karayaa processkan loo yaqaano distal tubular reabsorption waxa weeye waa in beerkii dawadii loo diro beerka marka dawooyinka inta badan distal tubular reabsorption lagu sameeyaa waxa weeye waa dawooyinka non polarka ah marka beerka dib loogu dirayaa waxaanu casharkan kaga hadalnay metabolism uu beerku sameeyaa metabolism markuu sameeyo dawadii wuxuu ka dhigayaa mid polar ah water soluble ah kadibna kaadiday raacaysaa wuxuu ka hortagayaa beerku processkii dawadaasi ay dhiigga dib ugu noqon lahayd waayo waynu saaraynaa dawadii looma baahna inay dhiigga ku noqoto that's very very important marka afartan process midkood bay dawadu martaa ama filtration baa lagu sameeyaa glomeruluska ama tubular secretion baa lagu sameeyaa haddii distal tubular reabsorption la sameeyana waxa weeyaan beerka ayaa metabolism ku sameynaya hadhow dawadii si aan mar dambe aanay dhiigga dib ugu soo noqon oo aan dib loo soo reabsorb karayn
marka that's very important waa muhiim keliduna waxa weeye waa root-ka ugu badan ee dawo laga saaro haddaba waxa muhiim ah qofkii kelihiisa aanay shaqaynaynin wuxuu u baahanayaa dawo kastoo kelida laga saarayo in dowskii dawada la adjust gareeyo la yareeyo waa hadii kale toxicity baa dhacaysa ilaa kelidii ma shaqaynayso dawadii markay saari weydo dawadii dhiiggii bay ku badanaysaa kadibna qofkii waa ku sumoobaya dawadaasi casharkan oo faahfaahsan insha Allah waxaad ku dhex dhigan doontaa kalaaska dhexdiisa haddii aad xiisaynaysid waxa socda isqorista fasalla cusub oo ah barashada daawooyinka qaab online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga nambarada hoose ayaad la soo xiriiri doontaan sidoo kale ha moogaanina inaad videoga sii baahisaan si uu dad fara badan u gaadho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh